السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada channelkeena insha Allah maanta waxaan sameynaynaa qadadii ciyaalka. Gabdho badan ay soo weydiiyeen marar badan fiidaashii cuntada ilmaha maxay u joojisay ma joojin waa mashquulay kali ah marka insha Allah inaan bilaabo isku dayaaya. Kan waxa waaye bocorkan iyo marka waa jab yar aan soo gatay ma rabo isagoo weyn inaan soo gato because intaan aadaan qudaar kale iyo waxyaabo kale ku dardaro asaga ayaa hal asbuuc ugu filan. waxa kale barada macaan, karooto iyo looska loo yaqaano walnut. looskan bacdan ku jiro bacdan ka daadiyay way jaxmatay marka saasaan uga shubay halkaan igu jira soo badan marka bacad jaxmatay halkaan iskaga shubay insha Allah waa fiiqaya waa isku dardaraya subaga sirkaan ku darsanaya iyo wax yar bariis iyo xogaa yar qudaar ah marka kan inaan soo dhaqo waxaan ka soo saaraa rabaa labadan waxay faa'iido u leeyihiin maskaxda marka saa darteed ayaan ugu darsanayaa ayaga awalku ma darsan jirin intaana sameyn jiray iyo qudaar kale iyo maxaa la jiray bariis iyo waxyaabo kale ku dari jiray laakiin hadda cunugay waxaan inta badan ku daraa waxyaabo faa'iido u leh maskaxda marka insha Allah kan ayaa hadda bartay oo bocorkan isaga aad maskaxda ugu fiican yahay fiitamiino badan uu leeyahay. bocorka waxa ku jira sida fiitamiinada vitamin A iyo vitamin C waxyaabaha ku fiican yahay sida cuntada wadnaha u fiican oo kale. looskan walnut ka intu sayna asagana cuntada maskaxda u fiican ayuu ku jiraa laasim omega 3 laga helaa 100 fiitamiino kale ayaa laga helaa hadda ma soo koobi karo insha Allah marka saa darteed ayaan ugu daray haddii aad raadinayso oo ilmaha maskaxda u kobciyo kale ama dadka waaweyn xitaa ilmaha kaliya ma ahan insha Allah waa ku darsan kartiin anaga ku darsanaa anaga ilmaha dadka dhan ku wada darsanaa ma sha Allah iska jooga hadda waa jarjaranaynaa qudaartii waxa dhan isku diyaarsanaynaa marka waxa rabaa inaan ka saaro maxaan dhahaa lafaha iyo waxaas qashinka ka saaraya oo soo dhaqaaya jaridiisu sometimes waa adag tahay wax yar ay adag tahay wali hadda mid kan uu fiicay mid hore iga soo gadi jireen oo korkiisa oo harud u eg yahay waxa waaye in la jira aad u adkeed markuu saas kula adeeg yahay xasaban kartaa ovenka gelin kartaa ovenka marka ku daarto uu bislaanaya hadhow wax yar wuxuu noqonaa soft ah oo qaadada uga soo xagaafin kartid ama uga soo xaaqi kartid qaadada inta jirjirada waqti badan ay ka qaadanaysaa laakiin aniga dabada video sameeyay way fududaa alxamdulillah kan saas uma adka kus waa cadi yar adag way fudud in midida dhex geliyo midka sheega xogaa uu weynaa maadaama aad u weynaa waa ku khasbana inaan ovenka geliyo marka insha Allah dadkan jirjiridiisa wax saas ah qaadanayso ama qaadanayso insha Allah idinkan sidoo kale dadka xidhan maxaa fiidiyo soo gali weyda fiidiyo insha Allah soo wada fiidiyaal badan waqtiga iska adkaaway kadib waxa la gaaray Soomaan coronavirus iyo waxaas oo la gaaray maamso u dhacmal jira marka insha Allah fiidiyo hadda soo badanina hadda 80 iyo waxaan soo galiyay 5 fiidiyo ama 86 fiidiyo marka alaftayga waxa waro ina 100 ka xiro hadii ilaahay 100 fiidiyo inkastoo waqtiga dana aysan noqonin laakiin markasta waxa rawiigi markasta waxa dhaas asbuuc kasta hal fiidiyo soo galaa laakiin hadaba bishii hal asbuuc ama hal fiidiyo ama laba fiidiyo soo galiyo waxa ma sha Allah waa dadaalay marka insha Allah oo soo wada fiidiyaal badan hadii ilaahay gabdho badan daawada lagu cayiro ma keento daawada walaa ma keeni karo way adkaatay insha Allah iyadana iska heli doonaa marka hadda already waa jirna waxayga insha Allah waa mar dhow isku dhamaanayaan
أنا أنت بدون استعماله بردة معان iyo kaarootada xitaa daa wax kale ilmaha u karnaayo maxaa yeelay baradhada cad waxa u siiyaa jibis ahaan marka labadooda sa iskugu garabado tan kalena iyadoo aan soo sheelay ama ofinka aan gashay oo tan cad siiya baradhada caadiga ah midaana waxa u siiyaa macaan ahaan maadaama ay macaan tahay markii wixii la shiido dhadhan qurux badan ay yeelanayaan marka wixiina waa iska ilmo macaankaas iska raan kaarootada iyo baradhada macaan markii isku shiido wax yar oo macaan oo qatar ah ka soo dhex baxaan markasta cunto kasta u karnaayo waxa ka dhigaa waxa koowaad aan ku daraayo wixii aan u shiilayna waa meesha wada siinayo baradhada kale fish finger kale waxa ayagoo shiilan la siinaayna taasna waa meesheeda insha Allah fiigasha ilmaha cuntooyinka soo badinayna hadii Ilaahay idmo cuntooyin badan iyo waxyaabo badan ku soo dardareynaa markaad waa fiiqaysaanay ku soo wada baxday kalarka quruxda badan markii qobkii laga riday bocorkii saas ku soo baxay oo soo habeynay marka kaarootada iyo waxa fiiqanina hadda waxyaabaha kale baradhada macaan iyo kaarootka iyo waxa dhan soo fiiqanina insha Allah fiidiyo inaan boobsiyaa rabaa dhaqsaa ka dhigo 10 daqiiqo inuu iska badan marka wax la fiiqaayo wax la habeenayo waqti qaadanay waa dareemi kartaan marka insha Allah fiidi hadda tan fiiqo baradhada macaan fiiqo kuwa kala soo fiiqo ku daraya baradho kale iyo marka insha Allah baradhadeena aan isticmaalayno iyo kaaroodkana waa organic ani inta badan ilmaha organic ah siistaa ma jecli maxaa la dhahaa wax oo organic aan ahayn marka waxyaabo organic ah markasta ugu roonaada ilmaha insha Allah laakiin dadka Soomaaliya joogo kale ayaga ma baahna wax organic wax waa iska organic ma sha Allah waa fresh marka insha Allah isku dardareeraa qashinka iska dhinac iskaga xaqaya baradhada iyo waxa dhan ba hal mar isku soo jarjaro waxa rabaa digsiga inaan salka u gasho fiidiyahan insha Allah asaga laftigiisa inuu soo jarjaro cod laga soo jarjaro la soo habaabay u baahan marka xarabo asaga iyo waxa dhan ba inaan ka dhigo wax yar oo hadda waa jarjarayna dhaqso kaarootada iyo babaayga iyo wixii dhow isku soo akaadeen ma sha Allah isku noqdeen wax yar oo kaal iskaareen marka digsi isku geenaya hal meel inta soo biyo raaciyo miraha qaadana ku soo dhaqana intaana digsiga aan horta u geenin bal qudaarta soo sameysana waa tan markaan digsiga isku geeyo waxa rabaa ana ayro gabadha baradhadii macaaneyd sweet potato and hawaii bocorkii kulligood isku kala reeba noqday ma sha Allah beautiful marka waxa sameeyay kala ku gudisanaaya ka bacdina waa soo dhaqay ka bacdina digsiga salka u dhigaya biyo ku shubaa insha Allah wada la socodsiina step by step marka hadda waxayga dhaw soo dhameysano waa isku soo darsanay insha Allah wax saada nooma haridin waxa la wixii dhan meeshaan ku wada shubtay saa aragtaan taasna waa frozen vegetableka cuntada oo frozenka marka waa iskaga darsaday iyada xitaa marka bariiskii subagii wixii dhan ku soo wada darsaday saliid oo darsan kartaa laakiin aan inta badan subag ku darsadaa hadaan u baahdo bariiskana hadaan rabto waxyaabo kala qamardi waxa soo iskaga darsan kartaa laakiin waan isku walaaqanaa wixii dhan isku soo darsanay isku soo habaysanay waxba hadda nagama maqno waxaan noo haray kaliya hal mar inay xuf isku soo dhahaan maxaa yeelay wax karis badan u baahan ma ahan waa wax yar oo baradhada iyo waxa dhan haddana waa soo gabagabeynay insha Allah wixii dhan hal mar markay 10 daqiiqo isku soo kareen waxa soo shiideynaa waxa kaliya noo haray hadda kaliya inaan baash ku shubno wanakaas saas ku soo baxday ma sha Allah ilmaha age ka rabta siisan kartaa 6 bilood iyo wixii ka weyn
يا أنا كل بواح لح بلود كر أنت مسيه لكن قبل يسوي ديان الماء في بلود كر صدح بلود كر ما لسين كرا أنتوا مهران بدنا هراء أسوق الشيء مركا أنا كم مسيستو لكن قف كسين هاي واسسن كرا حروة إن شاء الله استسر وأنا كنكم مع سلامة سبسكرايب نو صار إن شاء الله لايك تنقل